in dib u dayactir lagu sameyn doono isbitaalka Banaadir hooyada iyo dhallaanka ee Muqdisho waxa goobjoog u sheegay agaasimaha isbitaalkaas Cabdirasaaq Xasan Cali kadib markii la soo gabagabeeyay munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta isbitaalka taas oo safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ay ugu wareejinaysay qalab iyo daawo lagu horumarinayo adeegga isbitaalka. agaasimaha isbitaalka Banaadir ayaa sheegay tirada iyo tayada daawada iyo qalabka maanta la keenay. soo booqday ambassadorka dawladda China Qinjan maanta oo munaasabada ugu soo booqdan waxa weeye isagoo noo keenay deeq yar oo maanta miisaanadiisa uu ka bixiyay embassy-ga oo ah 22,000 waxay noogu soo iibiyeen waxyaabaha yar oo maanta bukaanka u baahan yahay waa iska donation yar oo tixgelin ah waay marka waxaan ku gadanay alaabtaas waxay noogu keeneen oxygen oo dadka loogu talagalay inay neefta qabato ay ku neefsadaan iyo cannula iyo maanta nebulizers iyo waxyaabo kale monitors iyo waxyaabaha oxygenka lagu baaro waxyaabaha xogaa testiska shaybaarka iyo bacaha dhiigga dadka lagu shubo wax noocaas waa isbitaalka waa badan yahay maanta waxa baahida isbitaalka aad u badan tahay. safiirka Shiinaha u jooga Soomaaliya Qinjan ayaa sheegay inay si laba jibaari doonaan taageerada ay siiyaan isbitaalka Banaadir isagoo kormeer ku tagay dhammaan qaybaha isbitaalku uu ka kooban yahay. Assistant to Somalia. So that time China is very poor, is very poverty, and then so Chinese government decided to help Somalia to construct some projects, landmark buildings. ugu dambeyn agaasima Cabdirasaaq Xasan Cali ayaa dawladda ka dalbaday in isbitaalka Banaadir ay dawladdu la wareegto si buu yiri loo soo celiyo tayadii ay lahayd shaqada isbitaalka. waxaan maleynaa waajibka waa gudnay laakiin waxaan leenahay dawladda kala wareegto Chinese-ka wuxuu yimid wadankan oo embassy soo galay 2014 14 isla markii isbitaalka Banaadir maanta soo booqday waxaan soo booqdeen in ay arkaan waxay dhiseen wax ka nool si gaar ah baaq aan ugu jeedinaya si gaar ah madaxda sare ee dawladda waxoogaa mugdi isbitaalka kaga jira in mugdiga ka baxo in shacabkana loo dawladda China ay isbitaalkaas waxay u geli karto u geliso magartay baaqaas aan u jeedinayaa inay naga aqbalaan magartay annagoo oo si voluntary ah ku soo shaqeynay. 1967 ayaa la dhisay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxaana xilligaas dhisay dawladda Shiinaha xubno ka socday. taageeradii uu heli jiray isbitaalka ayaa hoos u dhacday waana taqasabtay in tayadii shaqadu ay meesha ka baxdo. Calaadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.